بسم الله الرحمن الرحيم. maxaa gaarsiiya guurka heerka ba'an ee Soomaalidu u taqaan ijiid aan ku jiiday waa gacmadaalis? Su'aashaas jawaabteeda si loo helo ayaa khubarada ku takhasusa cilmi nafsiga guurka ayaa waxay sameeyeen cilmi baaris aad u weyn oo ay lamaano badan ku wareysteen. Gunaanadka cilmi baaristaas jawaabta ka soo baxday ayaa waxay ahayd sababta ugu weyn ee gaarsiiya guurka heerka ay Soomaalidu u taqaan waa sida maradaadu kugu olashay oo kale. Sababta ugu weyn waxay tahay guriga oo ka maran jaceylka iyo ixtiraamka. Runtii markaa fiiriso maanta waxaa jiro guryo badan oo Soomaaliyeed uu jaceylkii ka maran yahay iyo ixtiraamkaba. Sababta taa dhalisayna waxay tahay haddaan annaga Soomaali nahay waxaan ka aaminsanahay fikrad khalad ah micnaha jaceylka iyo ixtiraamka. Haddii aan tusaale u soo qaado jaceylka gaar ahaan ragga badankood ayaa aaminsan inaysanba ku fiicneen in la ogeysiiyo jaceylka aad xaaskaaga u qabto. Raggaas badanaa waxay ku andacoonayaan haddii aad xaaskaaga ogeysiiso jaceylka u qabto buuray is saaraysaa, waa kugu kor soconaysaa. Marka fikraddaas runtii waa fikrad khalad ah. Runtii waa jiraan rag badan oo Soomaaliyeed oo ogeysiiyo jaceylka ay u qabaan xaasaskooda, laakiin waxaa arkaysaa dadkii ayaa unquurinba. Dadkii ayaa xamanaya, waxay leeyihiin hebelihii ninkeedii macalinka ay u tagtay macallin yar ma aha, waa sixirtay, zaa'id ugu jajaban yahay ninkeedii. Marka waxaas waa khalad. Gabadhaas waxaa dhici karta inay ninkeedii sixir xalaala ku sixirtay oo suubanaanteeda ay ku sixirtay iyo dabeecad wanaageedii. Marka taasna waa khalad. Markii aad fiiriso nabigeena allahumma salli wasallim calayh waa ogeysiin jiray xaaskiisa jaceylka uu qabo. Waxaa jirtay sheeka asaga iyo Caaisha dhex martay. Caaisha ayaa weydiisay nabiga allow jaceylka aad ii qabto intuu gaarsiisan yahay ayay tiri. Markaasuu nabiga yiri waa sida xarig todcan oo kale jaceylka aan ku qabo. Markaasay tiri xarigga ma xoogan yahay? Markaasuu nabiga yiri waa xoogan yahay. Nabiga wuxuu kaloo yiri ilaahan ku dhaartay Caaisha kama murgo goortaan dhimanayo markaan ogaaday adiga inaad xaaskayga tahay markaan jannada galno. Caaisha farxad darteed waa kala badbadatay, aad ay ugu faraxday arrinkaas. Marka haddii aan u gudbo dhinaca ixtiraamka gaar ahaan haweenka badankoodii waxaa looga sheekeeyaa haddii aad ninkaaga ixtiraamto markaas loo iskibrinaa, markaas loo mici la soo baxaa, korkuu kaa koraa, ha ixtiraamin. Naaga badan ayaa saas looga sheekeeyaa. Marka fikraddaasna waa khalad. Ninka sida neefta aan neefsano oo kale oksijiinka ayuu ixtiraamka ugu baahan yahay. Waxaa jirtay daraasad ay sameeyeen khubarada cilmi nafsiga guurka ah oo ay weydiiyeen kumanaan rag ayay waxay weydiiyeen su'aasha ah kee doorbidaysaa inaad noloshaada la wadaagto xaas aan ku jecleen oo ku ixtiraamaysa iyo inaad la noolaato xaas ku jecel oo aan ku ixtiraamayn. Natiijada yaabka badneed waxay ahayd raggii 90% ku dhawaad waxay doorteen inay noloshoodii la wadaagaan xaas aan ku jecleen laakiin ku ixtiraamayso, taasoo tusaysa muhiimadda ixtiraamka ragga uu leeyahay. marka aad fiirisana nabigeena allahumma salli wasallim calayh wuxuu haweenka aad ugu booriyey inay ninkoodii ixtiraamaan ilaa heer uu gaaro uu dhaho nabiga haddii aan amri lahaa inuu qof kale u sujuudo naagta ayaan amri lahaa ninkeeda inay u sujuudo. Marka nabiga markaa fiiriso hadafkiisa ma ahayn inuu haweenka liido, laakiin nabigu wuxuu ogaa natiijada ka dhalanaysa aadaabtaas. maxaa yeelay sida dabiiciga ah ninka marka ixtiraamka tusto badanaa wuxuu kugu bedelayaa kalgacayl iyo wuxuu ku tusayaa jaceylka uu ku qabo. macnaa raggana runtii abaalgudashada aad ayay ugu xeel dheer yihiin. sida Soomaalida tiraa abaal raaga rag baa leh, mid baaqdana habeen baa leh, mid dhaqsadana xoolaa leh. ragga badankoodii
markii aad wax u qabato ama wax ixtiraam tusto waxaa hubaal ah inay kugu jawaabayaan kalgaceylkoodii iyo jaceylkoodii. haweenkana markii uu ninka jaceylkooda tuso taas waxay u suuro gelinaysaa inay ka helaan kalsooni iyo firfircooni u sahlaya howlaha guriga iyo nolosheeda caadiga ah. yacni markay carruurta arkaan hooyo aabbo isjecel, ayaga laftirkoodii koriinkoodii caqliyadeed, xag waxbarasho iyo xataa markay weynaadaan ay guursadaan, yacni guurkoodii ayuu si iijaaba ah u saameynayaa. marka qof walba ayaa ka faa'iidaya. yacni waxaa la yiraahdaa hadiyadda ugu weyn aad siin karto carruurtaada waa inaad tusto hooyadoodii oo aad jeceshahay, ama hooyo inay tusto inay aabba jeceshahay. hadiyadda ugu weyn ma aha hadiyadaha laysku soo gado oo gadgetka iyo game yacni playstation iyo waxaas iyo ma aha. hadiyadda ugu weyn waxa waaye inaad tusto inaad waalidkoodii jeceshahay. waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan leeyahay qof walba markuu guurka soo galayo wuxuu la imaanayaa taangigaasoo shidaalkiisa uu yahay jaceyl iyo ixtiraam. yacni taangiga ama haweenka shidaalkiisu waa jaceyl, taangiga oo ragga shidaalkiisu waa ixtiraam, taangiga carruurtana shidaalkoodii waa hooyo iyo aabbo isjecel. marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii horumari ummadaada, barnaamijkii taxanaha ah oo idin soo gudbiyeen Baasi Xaaji Busiri oo soo saarihii ah, iyo isku dubaridkii uu noo soo sameeyey walaalkeen Axmed Xasan Amiin. waxaan hadduu idii anfacay fadlan u gudbiyey saaxiibadiina si ay ugu faa'iidaystaan. haddii barnaamijkan waa barnaamij taxana ah, haddii aad rabto inuu si toosa kuu soo gaaro fadlan isdiiwaangeli, subscriber ka noqo. insha allah waxaan ku dadaalaynaa in barnaamij tayo leh aan idiin soo gudbino.